hadda waxaan noo bilaabanayo qaybteena saddexaad integral. cashirka maanta wuxuu ku saabsan yahay inaa functionyo kala duwan integrate. Okay? functionka koowaad waa f of x, waxaa waa e to the x oo x la kordhigay. intaad dhihi lahaysaan waxaa ka fiican dhaho saan. haddii aan dhaho functionkeena koowaad waa e to the x, keeni labaad waa square root x, saddexaad waxaan dhihi karaa waxaan dhahaa okay, sin x, afaraadna waxaan dhahaa cosine x. okay. labadan hore u soo dhigateen. okay. haddii aan dhahno kan koowaad, haddii aan dhahno integral e to the x dx, waa inaa ogaatiin inuu kani yahay e to the x. okay. caddeynta u haysto waa maxay? horaan iigu sheegay, haddaa u xasuusatiin e to the x haddaa derivative ku samaysid waa e to the x. marka haddaa labadan dhinac integral dhigtid, derivative integral way iscunayaan, waxa dhexda ku jira keliya soo cera e to the x. intana waxaa ku haysataa integral e to the x dx. okay. marka saas asku dayna. qaybteen functionkeena labaad waxa waayay examplekeena labaad waxa waayay square root x. marka waa inaan ogaano square root x haddaad derivative ku samaysid waxaa helaysa square root wuxuu sidiisaba la mid yahay x oo hal loo qaybiyo laba ay tahay oo potence ah. okay. haddii aan kan derivative ku sameyno waxaan helaynaa hal loo qaybiyo labo x, hal loo qaybiyo labo laga jaray hal. jawaabta waxay iskugu aruuraya hal loo qaybiyo labo x, hal laga jaray hal loo qaybiyo labo. okay. marka waxaan ogaanay square root x derivative haddaa ku samaysid waxaa haysataa hal loo qaybiyo labo x negative hal loo qaybiyo labo. okay. marka waxaan rabnaa inaan integraalkeeda ogaano square root x. marka inaan intana integral saarno waaye, intana aan integral saarno. okay. markaa saas sameyno saa hore u sheegay integral iyo derivative way iscunayaan, waxaa soo yaraa keliya waxa dhexda ku jiro square root x. intana maxaan ku haysanaa hal loo qaybiyo labo x, hal negative hal loo qaybiyo labo dx. tan waxaa u qori karnaa sida caadi ahaanta waa xasuusanaa hal loo qaybiyo saas ah waa square root x. x oo la kordhigaa hal loo qaybiyo labo. laakiin waa maxay tan? haddii aan dhahno inta negative waxaan ognahay hal loo qaybiyey x hal loo qaybiyo labo inay taas oo la mid tahay hal loo qaybiyo square root x. okay.
jawaabtu maxay noqotay jawaabtu waxay noqotay san haddii aad dhahdeed square root hal loo qaybiyey labo x negative hal loo qaybiyey labo dx waxaa hele square root x ugu dara c oo waa isfahanaa u malaynaa okay si kaloo ka fududna waa ugu shaqeyn karnaa square root x kan methodka labaad waxaa waaye san haddii aan dhahno integral square root x dx la mid tahay integral x hal loo qaybiyo labo dx anakoo qaacidadan isticmaalayno hal loo qaybiyo okay tani waxaan tusay waxaa raba inaan tusasaan laakiin wax yara adkee laakiin waa fahmi kartid waxaa kor ku qoran ama iska ilooba waxaa kor ku qoran iska iloobi kartiin inkastoo ayna qalad ahayn laakiin muhiimadeena waa halkan marka waa ognahay na'da inay tahay hal loo qabiyo labo jawaabteena waxay noqonay markaas square root x dx oo lamida integral x hal loo qaybiyo labo dx markaas waa ka shaqey karnaa markaas waxay lamid tahay hal loo qaybiyey saasay noqon way ugu raacsantaa u malaynaa maadaama na'da ay tahay hal loo qaybiyo labo jawaabtu waxay isku noqonee tan waxaa isticmaalaya fractionska caadi ah hal loo qaybiyey aboobsiiyo inta laba ku haysataa waxaan u qaybinaya saddex x saddex loo qaybiyo labo oo lagu daraacayn okay functionkana waa kan saddexaadna iyo afaraadba waa okay examplekeena saddexaad kan waa inaa iska xifdisid okay waxaa haysataa integral sin x dx waxay isla mid yihiin negative cosine x kasi anaa iska xifdisid kan kalena waa maxay integral cosine x dx waxaa waaye sin x c okay ka labadan waa iska xifdine labadan isku day inaa xifdis okay inkastoo levelkooda wax yar oo sareeyo laakiin iska fiican tahay in la ogaado okay xaggana ku joojinaynaa waana ku mahadsan tahay daawashadaada